halkan inuu deganaa amirka guud ee kooxda waan eegi doonaa waxyaabaha ku jiro agabyada kala duwan yani guriga ayay yaaleen sida soo gudub sinsiyerigan oo kale iyo waxyaabaha timirtan iyo agabyadan kala duwanba waxaynu ugu nimid gudaha halkan sunno ilaa haddana waxaan jeclahay ilaa ay ka cirib tirmaan tayadu ilaa ay ka gelayso haddii aana dhiman in al-shabaab wax ka cirib tiro oo geedkii galan baa uga daba galno markii ay ka baxayeen magaaladan farmashiyaashii intii yarteed dadku ay haysteen ay waxay geliyeen miinooyin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. muuqdo waa guriga mujrimka weynaa lagu qabtay maalin dhow bal ila arag gurigaas wax yaalo ma jiro xabada timira lagu leeyahay guriga arag ahaantiisa suu yaala bal fiiri meesha waxa ku jira aabba Soomaaliyeed waa duq Soomaaliyeed waa wax garad Soomaaliyeed waa duqeydii kamid Soomaalida inay marka ayada ahna dhibka haystay iyo rafaadka maadaama burbur iyo jab weyn Soomaali ay soo gaartaan ognahay dadkina ay siyaasadooda iyo meelo badan ba hata ay la gashay dhib badan wadanka ka taagan dadkii loo baahnaa inay wadankii bal talo iyo marka ayada wanaag wadanka ugu taliyaan laakiin muxuu ka fikirayaa tiisa ayuu ka fikirayaa waa ninka meesha ku jiro oo hadda meesha ku dhuumanayo diin ayaa u dagaalaya gaar ayaa la dagaalaya uu leeyahay iyo la dagaalaya waa intuu dhalay waa intuu la dhashay waa intii madaxdu ahayd waa Soomaalidii waa dadka diinta lahaa ee uu ku soo dhax koray ku soo dhax barbaaray asaga soo wax bareen oo diinta soo bareen ayuu maanta qoorta ka jiraya oo uu leeyahay gaal ayaan la dagaalaya ninka adii diinta ku soo baro islaamnimada waxay tahay macaankeeda ku soo bare oo adii meeshaas maanta ugu jirto meeshaas uga dhuumanayso ilmahaada iyo cidaada iyo haweeneydaadii aad u dayacday oo diin baan u dagaalaya aad leedahay horta waa arrin aad u foolxun waa arrin kulay hadii aqal xun ayuu u geysay lama dhihi karo ninka inta la eeg misna duqa inta la eeg aqal la'aan ma hayso kulay wuxuu ku damcay waa ilaahay ku fadaray waa ilaahay furaha duka qaado hadii wax kasta ayaa iskaga dhacay wax kastana wuu ku saxan yahay diin ayaa lagu leeyahay marka diinta loo dagaalayo intee looga dagaalaya yaa loo dagaalaya yaa la dagaalaya su'aasha taas waa qofka aad la dagaalayso waa qofkii adig kula dhashay waa qofkii adig diinta ka jeclaa waa qofka adig diinta kaaga dhawaa ayaa maanta qarxinaysa ayaa maanta dilaysa aabbo misna hooyo saaka suuq iska soo aaday ciyaal iskuul iska aadeen oo waxbarasho maanta u jiraan oo diinta inay bartaan misna waxbarasho u joodaan ayaa maanta qarxinaysa oo isku qarxinaysa waalidiin iska xamaalanaya ilmahooda iska xamaalanayaan ayaa qarxinaysa oo ayaga tooday haysato ayaa maanta qarax u dhigaysa oo lug ku waanaya gacan ku waanaya dhimanaya silac isakaraadna meesha lagu jooga guriga lagu burburinaya dadkii la iska xoogaya xoolihii la iska dhacaya marka ma isdhihi karno diin ayaa loo dagaalaya kulay qofkii maanta maskaxdiisa ugu jirto diin uu la dagaalayo qofka maskax wanaagsan leh oo kulay haduu gadaal iskugu noqdo ka fikir arintaas asoo ilaahigiisana marka ayada xaqiisa u noqonayo kulay qalad way arintaas arin qalad ayaa meesha ka muuqata waa arin aad u foolxun ninkan meeshan uu ku jiro kulay meel uu joogana ma u waanin meel uu ku noolaadana ma u waanin si uu Soomaalida ugu dhax noolaadana ma u waanin meeshan waxa keentay waxa waaye dhibka Soomaalida umada Soomaaliyeed uu ku hayo maalin kasta wiil uu diraayo maalin kasta habeenay uu diraa maalin kasta nin qarax ku xiro uu leeyahay kacsi soo qarxi kacsi soo dil ka marka ayada soo shahiid ilaahay maartay ku dambi dhaafaya aakhira meel wanaagsan ayaa tagi ka gaalada soo la gaalada lalaana intay jirtaa Soomaali gaalada lalaga laana intay joogtaa Soomaaliya waxa lalaana maalin kasta oo dhinto oo aan arkayno waa ummadii Soomaaliyeed ee islaamka ahayd ee diinta haysatay oo shanta waqti aan ka tagaynin oo ilaahigooda ku xirnaayeen ayaa maalin kasta la dilay marka qofkii haduu ku fikiro maanta maskaxdiisa haduu ka shaqeysiyo ku fikiray nin muslim ayaan janno ku gali oo maanta ku shaahidi oo maanta mujaahid ku noqonay mad kulay nin maskaxdiisa tamaam ay tahay kulay kuma fikira arintaas kuma dhaqaaqayo laakiin meeshii waxay noqotay kulay fikrada ay kale yihiin waa dad la soo taageera oo meel laga soo taageera waa dad meesha hanti laga soo siinaa kulay sidee u muuqatane arintan siyaasad bay salka ku leedahay waayo ilaahay dartii hadii arintan nin u dhimanayo ilaahay dartii u socdo haday tahay kulay tilaabada kuma dhaqaaqeen tilaabadana muu jeclaysteen oo maanta inuu ummad Soomaaliyeed u baabi'iyo muu jeclaysteen laakiin arintan waa arin siyaasad gaar ah ku haysato 3-4 qof ayaa lacag lagu siinaya inta kale waxa leeyahay ka aniga isdagaala waa fikrad maskax hadii laga geliyo ilaahay dartii u dhinta gaalada nagu soo duushay diinta ayaa la haleenaya sharciga islaamka la haleenaya kan ayaa la haleenaya hadii sharci islaam meel kasta uu ka jiraa diintana maanta Soomaali ma ii bilaabin adduunka Soomaali looma keenin diintan marka hore
diintan carabi ku soo degtay diintan waa lagaaga soo horreeyay ka awow diintan sideeda waa diin la soo dhaqaam soo socotay diin maanta imaatay ma ahan diin maanta cusuban oo dadka maanta ku cusuban ma ahan diin maanta loo dagaalamay ma ahan diin lagu soo duulo maanta adig laftaada ummadaada la federeenayo adig lagu la dagaalamay ma ahan Soomaali waa wax meesha madaxa ku Soomaali waa wax maanta ku dhaqan qofka madaxweynaha waa Xasan Sheekh Maxamuud waa wada garanayna waa nin Soomaaliyeed waa nin muslim oo la garanayo dadka ku soo wada xoogan Xamse waa ra'iisul wasaaraha waa nin islaam waa nin muslim waa nin aan wada garanayno marka ninkii maanta uu niyeestay inuu Xasan Sheekh uu qarxiyo janno ay ku tagi misna qof iska muslim oo Xasan Sheekh oo kala janno ku tagi hadaan qarxiyo mise aan dilo kulay fikradaas waa fikrad aad u falxun dadka laga dhacsiinayna kulay inay marka ayada ay ka fikiraan waa arrin muhiim kulay ninkii maskaxdiisa tamaamay ilaahay hadii uu meesha ugu talagalay qof kasta waa mara laakiin ilaahi kulay nama marka arinta lagu ma fadreeyo waa diin ka bax waa arinti adduunka ugu xumeed waayo adigoo isqarxisay misna isku qarxisay qof muslim oo shantiisa waqti soo tukada isku qarxisay jannaan ku tagi ilaahay hortiisa aad tagi doonto koray wixii aad kula tagi doonto ilaahay ba shay kara anaga hadda waxaan ka sheegi karnaa ma jirto laakiin arintaas ninkan hadda duurkan ku jiro meeshan ku dhuumanaa silacan aragto ku dhuumanaa inuu maanta uu wanaag uu ka soo heli misna uu janno ku tagi uma eko inta la fikrada waa kulay arrin ay loo baahan yahay inay ka fikiraan waa arrin loo baahan yahay inay mar gadaal isugu noqdaan oo ay dhahaan arrinta masahba ma qaradba laakiin hadii ay ku socdaan kulay meel wax xun ba u dambeeyay maalin kasta qarax baa dhaca maalin kasta wiil baa dhinta maalin kasta dad baa la laaya arrintaasna waa arrin Soomaaliya u taalo waa arrin loo baahan yahay in dadka uu ka fiirsado waa arrin loo baahan yahay in ummadda Soomaaliya laga wacyigeliyo waa in arrin loo baahan yahay dadka in gadaal loogu noqdo bal ummadii culumada ay leedahay dad idil wax bartay ay leedahay in gadaal loogu noqdo la bal arrinta waa qalad dadka baadiye iskaga jiraan waa qof iskuulay oo misna baadiye ku jiro xoolo dhaqata ayaa la leeyahay kaala siin suub dagaalka hadda ka socdo Soomaaliya uu ku qaday madaxweynaha Xasan Sheekh dagaal badan ayaa socda al-shabaab lagu hayo oo maalin kasta meel lagu bixiyo maalin kasta la laaya hadda waxay noqotay duqeydii deegaanka in loo hanjabay oo la leeyahay hadii aad ka hor imaan waaso marka ayada hadii waan ognahay in dadkii deegaanka degnaa in hoob la siiyo ay kalaftoo ay dagaalamayaan in duqeydii hadii loo soo dhunto la leeyahay adiga u maqan hadii arrintaas aad ka noqon waaso mise dadka aad ka qaban waaso maadaama duqeydii ay hadal ku leeyihiin mise dadkii dhaxdooda ay hadal ku leeyihiin mise dadkii ay dagaalka ka baxay meeshii deegaanka ay yihiin oo meesha dagaalama ay deegaanka yihiin ayka ayaa loo hanjabaa ayka la leeyahay adaan ku dili marka arrintan kulay arrin wanaagsan ma ahan mise u dhimo mise ha u dhiman laakiin qofka ku jiro mise fikrad leh oo fikrada noocaas leh in fikrad wanaagsan uu haysanin ayaa uu ogaahay inuu ogaada muhiimadda in dadkii laftooda loo sheego oo dawladda dagaal ma iska qaadin dadkii meesha degnaa ee kulay dadkii adiga ninkii Muqdisho ka imaaday oo duurka aruud ku jiro inuu loo sheegi kara ayaa muhiimsan dadka baadiyaha iska degnaan ee fikrada xun laga dhaxsiyay in ayaga laftooda arrinta loo sheegi karo oo dhibka lagu hayo way og yihiin qofkii hadii kale uu dareemi karaa in meesha diin loo joodin wax kale loo joodo laakiin in ayaga laftooda arrinta loo sheego oo sidaas gaalada maartay kale waa gaal ma dhihi karaa saa looga hormaadan baa wanaagsan ee madaxweynaha uu qaaday inuu kula dagaalamana waa soo dhaweynayna Allah uu ku guuleeyaan leenahay Allah ku xafidaan leenahay marka wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh